oo ku saabsanaa fal shalay toole ka dhacay madaarka Hargeysa. ugu horeyn wasiir Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waanu hambalyeynaa waxaan ugu aragnaa siyaasi xor ah oo aragtidiisa u madax bannaan waxaan ugu aragnaa nin damqasho iyo daljirnimo iyo dareen naxariis leh uu ku jiro waxa la yiri nin dameer wataa dad kala kalmaaha ama dameerelay dad la tooyisho maaha meel kasta oo la joogo waxa loo baahan yahay in lugul oo dabacsan oo dhowrsan lagula dhaqmo dadka qaarkood qofka hadii uu yahay qof weyn hadii uu yahay qof caruur wata hadii uu yahay qof laxadkiisu aan dhamaystirnayn intaba laguma dabiqi karo shuruucda caalamiga ah oo hadii marka doorasho la gelayo oo ay sharci tahay in saf ama kuyuu la galo qofka weyn ee daada ah lama oran karo safka soo galo in kala baata jirka daba istaag qofka umusha ah lama oran karo daba istaagday ninka qofka aan laxadkiisa arag ama maqal ama dhamaystirnayn lama oran karo waxaan u aragnaa gabadhii shalay toole in doodeedu ay sax ahayd ilmo yar bay wadatay kolba dadka ma jeeri karayso nin kale oo muwaadin ah ayaa markii warkay xaaladda wuxuu yiri halkayga walaal soo fadhiiso wala caawin crew amina shaqaale meesha ay ku doos maxaa lagu yiri ereyada loo isticmaalay caydeedu maxay ahaayeen ereyada loo isticmaalay gabadha ka soo fulay maxay ahaayeen wasiirku hadii uu yiri qofka muwaadinka aan la dareen noqonaya uu ku saxsanaa hadii uu de ama jubba ama daalo midkood raacay gabadhii oo joogtana dhibaato ma arkayno gabadhu lacag bay bixisay lacagtii aad ka soo jarteen Fly Emirates ayuun baa de halkana ku bixiseen anagu de aqoonta ragan aqoonta sheeganay madaarka jooga ila doodeeda wasiirka garanayno waxaan leenahay de hebelow school baad iga jirto adigoo weyn baad mii ka timiyo form 2 ga markaad hay'adda hafjiisiga ka baqatay waa lagu garanaya dadkaas ku fasalka hayeen baa de magaalada jooga adigoo intuu dugsigiisa dhamaysan ayaa jaamacad fadhiisto waliba magaca walaalka baad ku gashay iyadoo sidaas tahay haddana de ragii imtixaanka ku gali jiray baa jooga magaalada marka anagu aqoonta aad sheeganaysid iyo aqoon darrada aad hebel ku sheegaysid midna garanayno dadar waxa meesha lagu keenay waanu garanaynaa iyo sababta lagu keenay iyo aqoon wax lagu xulay midina ma jirto waxa weeye wasiir Cali Mareexaan hadii aanu nahay dhalinyarada xorta ah aragtidooda madax bannaan waanu ku taageersanahay dareen wadaniyadeed ayaa sameysay nimankanna waxay ka cabaadayeen wax kale maaha waxa weeye shirkadan la yiraahdo Fly Emirates cid baa dalka mas'uul uga ah oo lama taaban karo cid kuwan de meesha madaxa duulista keentay madaarka keentay ayaa de wakiilka lama taaban karo de Fly Emirates marka waxa la yiri dameer isku haleyn bay hooyada dabada uga nuugtaa de Fly Emirates waxay u diidayso